يوسف جاله حلك اللي جوه رجيم ما ينك مريحان كاسي أهانا إمارية ربورك مقدشو دكده المعال لما فريو قرانك إسرائيل لما فريو معنا كلوينا كجرا ديارها كما دي كران معنا كلوينا كجرا رئيس الوزراء قاضي عشورته وزارة المالية إسقى معمولاي قرشك كوينا كجرا عبساق بهلاوي متقانا حلكي ولا قاضي وانا الحرية كي دارود مريحانا حلكي سو هيسانيا oo lagu amaanaya oo lagu taageeraya macna weyna ku jiro maxamed cabdullaahi farmaajo nin hawiya oo hiraaba oo habar gidir oo sacad raaciyaan la ayuu lix saac baawrkiisa marsiinaya $5,000 bixinaya halaaluusha waa laga aamusaya qofna looma xirayo qofna mataqaan looma qisaasayo kibir qooqa ku jiro qadiyadii siyaad barre oo halka taagan weey waa arintii jalaal salaad gabayre iyo jalaal deel lagu daldalaw ee lagu diray kii garawaayo hadii xildhibaanada hawiye ay berito is asiri waayaan ama arinta ka dhidi waayaan meel iiga qora waxa dhaca arki doonta habeen aan caaw ahayn oo ay sabilooyin ka soo wareegay ayaa ka doonta ujeedka ugu weyn la leeyahay muxuu yahay ujeedka ugu weyn leeyahay waxa weeye shirkadda Soma Gas and Oil ayaa la doonayaa dalka inay iska dardarato shidaalka la qoto marka hanti dhowr guud oo qaran looma ogola lixda blog ugu weyn ee xasan qayre ay rabaan farmaajada galmudug ku taala waa sababta xaaf loo diidan yahay waa sababta xaaf loo diidan yahay taana meel iiga qora arrintaana meel iiga qora tan kale soo socota maxay tahay waa arrinta imaaraadku ay wataan laakiin inta joogtaan baa waxaad marqato u noqotaan madaxweynaha galmudug ma aqoonsanin maxay Axmed Ducaale Geelle xaafay og yihiin inuu si Cabdiweli Gaas wuxuu rabo ha u dhahayn farmaajada wuxuu rabo ha u dhahayn Axmedoobana uu iska gambareen waxaan looga jawaab maanta in xildhibaanada hawiye laga soo masaafuriyo kismaayo oo leeyahay matala dadkooda waxaan idin leeyahay jaal hawiye xala TV-ga ma daawareyseen TV-ga qaranka xala ma daawateen markii ugu horeysay ayaa barnaamij wiilku 20 jir oo tabinay wuxuu yiri jaale maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka degay oo si weyn loogu soo dhaweeyay diyaaradaha ee Boori International ee Addis Ababa jaale maxamed siyaad barre ayaa waxa jaale maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waxa garoonka ugu hor yimid ee ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha kilinka shanaad jaale watabti siyaad barre وطبت سياد برا والله وبالله وطلعه يبي لو دبعين جاليدها هويه نورد امريكا دغن iyo Yurub maxamed cabdullaahi farmaajo waxa la yahay gudihii wax laga qabanaa waa arkaynaaye dacwada bilaabo loo helada qabta lacagta aruuriya ninkii uu dilo baawlkiisa marsiiyay adeerkay ee baa u naxariistay abwaan taliil jimcaale hubana dhiigiisa meel soo saara wabillahi tawfiiq waxa leeyahay jaalayaal hawiye dabayshu geedaha وما روح ذي إني عياسيسو إيه هبلغ ليس النبي والسلام عليكم.